الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لباتناد يا كتاب كان مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله وقيبتي لسوء أروريي فوائدها شيخ سوء أروريي وحاكمة الجزاء من جنس العمل فمن عفى الله عنه قفك إلى ذاتك عفية الله بأسجن عفينيه ومن سامح أخاه في إساءته سامحه الله في إساءته قفك ضدك كعفية سامحة اسكرافة وحي أي كسميين وحمان إساقنا الرب با كرافة وحي الذنوب أو سميي قفك ضدك أرافة أو كجيد سيدا أو كإن دلابة إلهي با إساقنا أرافة قفك ضدك كؤد أتكاذا isagana allah ku adkaynaya allah subxaanahu watacaala wuxuu kula tacaamulayaa addoonka fii dunuubihi bimithli maa yucaamilu bihi alcabdu annaasa fii dunuubihim siduu isagu dadka ula dhaqmayo oo dadka isaga wax ka sameeya si ula dhaqmo buu ilaahayna isaga ula dhaqmayaa faman axaba an yuqaabila allahu isaa'atahu bilixsaan qofka jecel marka inuu rabbi subxaanahu watacaala xumaanta ruuxu leeyahay ixsaan iyo wanaag kuugu bedelo ma jeceshahay in dhibaatada ee xumaanta dunuubtaadii ilaahay ixsaan iyo wanaag uu kuugu bedelo uu kaa dhaafo falyuqaabil huwa isaacata annaasi ilayhi bilixsaan adiguna dadka xumaanta ay kugu samaynayaan wanaag ugu bedel adigoo sharciga marka la fiiriyo yacni samayn kara intii lagugu sameeyey haddana maca daalika inaad cafiga ilaahay qaadato ood iska dhaafto ood ixsaan samaysa baana ka khayr badan siduu qur-aankuba inoo cadaynayo ayib ta'amal bal waxaad ka fiirsataa alkhuluq hada alkhuluq alladii khusa bihi alinsaanu duuna jamiici alxayawaanaat wahuwa khuluq alxayaa waxaa jirtaa arrin uu bini aadamku gooni la yahay xayawaanaadka kale oo dhan oo ilaahay abuura uu khalqayna ayna lahayn waa waxaa la yidhaha alxayaa waa quwa daabita xayaha waxaa la sidiisaba qofku wax kasta oo dembi uu rabo inuu sameeyo waxa ka celiyaayey waa xishoodka weeyaan markuu rabo inuu been sheego waxa ka celiyaa waa xishood dembi inuu ka celiyo waxa kor uu ka celiyaa waa xishood marka khuluqul xayaa alladii huwa min afdali alakhlaaq akhlaaqda waana kan ugu fiican oo ugu qadar ahaan ugu wanaagsan oo ugu nacfi badan waa khaasiyata alinsaaniya waa bini aadamku waxa uu gooni laleeyahay faman laa xayaaa fiihi laysa macahu min alinsaaniyati ila allaxmu waddamu buuri qofkaas sidiisaba haddaad marka ka weydo xishood qofkaasi waa un qof uu ka muuqda haddee bini aadamnimo xaggeeda jirkiisan iyo unbaa ka muuqda ma ogiye laakiin ma laha wax khayr ana kuma jiro laysa macahu min alkhayri shay-un wax khayr ana qofkaasi ma laha hadduu xishoodku ruuxu ka tago waxaa weeyaan qiimihiisi wuu baaba'ay idaa kaana lidunuubi cuquubaat walaa budda haddii dembiga ay cuquubo leeyahay waana lagama maarmaan inuu dembigu cuquubo yeeshe cuquubada addoonka fakulamaa cuuqiba bihi alcabdu min dalika qabla almowt qofka intuusan dhimanin wixii ku dhaca ayaa khayrun lahu mima bacdahu wa aysaru wa ashalu kathiiran yacni intaad dhimatay kadib dhimaashaha kadib in laguu qabsado oo lagaa gooyo oo laguu ciqaabo waxaa ka fiican intaad nooshahay wixii kugu dhaca marar kalena arrintaa waan ka soo hadalay waxaana weeye qofka adduunka intuu joogo waxa ku dhaca oo xanuun ah oo jiro ah oo geeridii kale kusoo maraysay iyo waxyaabaha kusoo mara oo dhan waxaas ruuxa soo maraya intuu adduunka joogo yaa uga roon oo kulli dembi dhaaf ba yihiin xataa shawkatu yushaaku biha waa kii rasuulku laha xataa qodaxda ku mudaysa waa dembi dhaaf maxaad u malaynaysaa qof cudurrada halistaa ku dhacayaan oo rafaaday oo aada iyo aada ula rafaaday qofkaana dembigiisa inuu dhammaaday baa loo rajayn aakhare hadduu tagana isagoo dembi la-aana inuu tago ayaa loo rajaynayaa khusa dakaru waxaa gooni lagu yeelay ragga
in ilaahay ku qurxiyey baa layidhi wejigooda bilixya, garhka inuu ilaah ku qurxiyey. yacni garhku waa qurux, waa waqaaran, waa heybatan wa jamaalan. waa qurux ilaahay uu ruuxa siiye weeye. waa fasli uu ku kala saaraya isagii caruurnimadii iyo qofka inuu rag noqday baa lagu kala bixiyaa. waa farqi u dhexeeya isaga iyo dumarka u dhexeeya. marka quruxdii ilaahay qofkaa siiyey hadduu qofkii zuuliye ka waran, uu garhkiisi xiiro, xaaliq uu iska dhigo, dumarkii isu ekeysiiyo, haddana maanta dee dad badan baaba iska dhaaf gar la xiire hay-adoodii bedela oo rag badan baa dumar iska dhiga. waxyaabaha aad arakeysaan ee adduunka idin soo maraya waa waxaad la yaabayso. waxaa qiso cajab badan oo anigu arkay haddaad idiin sheego. baabuurka meesha aan dhigto oo gurigayga dhinaciisa ah waxaa baarkinka igu xiga dhigta qof